taliyaha qaybta booliska degmada Boortile ee gobolka Nugaal ayaa xilka qaadis lagu sameeyay iyadoo lagu bedelay taris cusub haddaba taliyaha qaybta booliska degmada Boortile waxaanu ka wareysanay arrimahaasi ayaa waxa uu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay qaabka xilka qaadistaas ku timid isagoo sheegay in wararka baraha bulshada lagu baahiyay ay yihiin kuwa been abuur ah laguna buunbuuninayo waa kan taliyaha qaybta booliska degmada Boortile ee gobolka Nugaal Jaamac Cabdiraxmaan oo arrimahaasi iga warramay waxa hadaladiisa kamid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim walaalahay hadda ku salaamaya dhamaan shacabka reer Boortilana waa salaamaya iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeedba way jirtaa arrinta su'aasha iga weydiisay Sharmarko oo ah markay xilka qaadista iyo markay isku bedelista taliya saldhigyada degmada Boortile sidaad ogtahay ama la wada ogyahayba sida caadiga maaragtay ku bedelka saraakiisha ciidanku waa wax caadi ah oo sunnada dawladnimada kamid ah muddo halkaan ka shaqeynayay haddana si caadi ah oo maaragtay la bedelay oo waxa saldhigga loo soo magacaabay sarkaalka galabta ayaan maaragtay wareejinta dhacday aan xilka ku wareejiyay si caadi ah aan wax dhibi jirin intaas ayaan kula wadaagi karaa adiga iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan shacabweynaha reer Boortile oo aan aad iyo aad ugu mahadcelinayo muddadii aan soo shaqeynay degmada sidii wanaagsaneyd oo ay noola shaqeeyeen hadday tahay nabaddoonnada iyo maamulka degmada iyo ururada haweenka iyo dhalinyarada iyo ciyaaraha waxgaradka guud ahaan degmada Boortile wax uu salka ku haya ma jirto waa sida caadiga maaragtay shaqada dawladnimada baa sida ah wax badan oo u malaynaya inaad maqashay hebel waa la bedelay hebel nin la qof leeyahay lagu bedelay intaas baa salka ku haysa wax kale ay salka ku haysa ma jirto taliya waxaa jira warar hoose oo sheegaya in adiga lagu yiri waxa soo xirtaa qaar kamid ah wariyaasha degmada iyo sidoo kale dad kale taasna aad tiri sabab sharci oo aan ku xiro ma hayo saawadeed inuu bedelkaasi ku dhacay warar waxaa jira social media yaala arrimahaas maxaa nooga sheegi karaa warkaasi waxa weeye social media aan ku arkayay iyo baraha bulshada oo qoraya haddii la kugu raayo waxa anagu aanu dadka u sheegnayna ma ahana waa war iska maaragtay la xiriira baraha bulshadana dadka isticmaala wixii la rabo oo qofku maaragtay u jecel yahay uu isticmaalaa warkaasna war jira ma aha waa wax la buunbuuninayo oo baraha bulshada lagu buunbuuninayo hadda waxa la yiraahdo haddii la kugu raayahay aanu maaragtay wax war noocaas u sheegnayna ma jiraan hadda markaan ku celinayaa isaan kuu sheegay waxaas anagu mana oran wax jirana maahan waxa la yiraahdo muxuu ahaa haddee sidaan maaragtay kuu sheegayba waa wax shaqada dawladnimada kamid ah in qof la bedelo qofna booskii la keeno marka intaas baan kuu sheegay waa gartay taliya marka adiga haatan xagee lagu bedelay ma deegaan kale lagu bedelay mise oo degmo kale miyaa lagu bedelay waan joogaa walaalle waan joogaa anigu hadda dawladdu sarkaal dawladeed baan ahayo waxaa laga yaabaa inay meel kale shaqo iga dirsato oo maaragtay waxa la yiraahdo laakiin ilaa iyo hadda anigu meel laygu amray oo halkaas ama la ii magacaabay kuma sheegi karo askarta iyo saraakiishuba sida caadiga waa shaqo u joogayaal oo bulshada ay u adeegaaneen marka hadda meeshii maaragtay shaqo ka bannaan tahay iyo booskii la rabay inaan buuxino hadday noqoto difaaca bannaanka iyo xuduudaha iyo hadday noqoto u adeegidda bulshooyinka magaalooyinka degan dhexdeeda ka shaqayntooda intaba diyaar baan u nahay waxaana maaragtay haddee u shaqaynaa waa dawlad waxaanu nahayna waa ciidan guud ahaanba dhegeystayaal qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay wararkeena caawa aad ka dhagaysanayseen idaacadda quraanka kariimka al-xikma intaan warkan war lamida ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh